دونالد ترامب ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyey warqadii casimaadda ee lagu casuumayey ra-iisul wasaaraha Canada inuu ka soo qayb galo ururkii beenta ahaa ee la magacaabay ee la yidhi waa nabadda kasta ayuu kala noqday isagoo weliba caraysan. Donald Trump ayaa lagu sheegay inuu ka xanaaqay eedayntii uu kala dullaacay ra-iisul wasaaraha Canada shirkii Davos ee isbuucan khudbadii uu ku jeediyey waa xasaasigeed oo lagu tilmaami kara mid ka mid ah khudbayaashii ugu xasaasisanaa oo mas-uul reer galbeeda uu sheego. طبعا رئيسل wasaaraha Canada ayaa sheegay in Mareykanka wax walba uu ku ciyaaray hadda kadibna aysan jirin wax darisnimo iyo xiriir caalami ah ilaa nidaamka caalamiga ee adduunkan kaba ahaanba uu burburay oo hadda dal walba uu nafta ay marayso dal walba inuu isdifaac ay tahay isla markaana Greenland reer Yurub uu ku buuriyey inay difaacdaan inay iska dhiciyaan boobka uu wado ninka la yidhaahdo Donald Trump oo hadda usoo jeestay inuu wax dhaco oo keliya. طبعا arrintaas ayuu ka xanaaqay leeyahay Donald Trump sidaas darteed ayuu warqadii casuumaadda u diray haddana kala noqday.